السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa garoonka kubadda cagta ee xirada qaxootiga Dhagaxley mar dhow laga ansixiyay magaciisa waxa la New Era Stadium waa garoon casri ah oo hadda waan ku suganahay garoonka kubadda cagta waa abaar hal saac habeenimo hal saac fiidnimo xilli hadda ay bilaaban rabto garoonka kubadda cagta ee game uu bilaaban rabo gameka hadda soo gal rabo dhalinyaro Soomaaliyeed ku nool xirada qaxootiga Dhadhaab ay ciyaar rabo laba team garoonkan maalintii la ansixiyay oo xiriga laga jiray ilaa hadda waxaan ku ciyaaraa dhalinyaro habeenkii niman waaweyn oo Dhagaxley Balooni Dhagaxley ka galay heer weyn oo hadda retire noqday ayaa ku ciyaara garoonkan waxaan arkaysaa dhalinyaro soo buux dhaafinayo oo qaarkood daawanayo qaarkood ciyaarayo qaar waxaan arkaysaa oo habeenkii u soo caweystagayo meeshan oo imaanayo meeshan qaar waxaa jira maalintii shaqeystaan oo maalintii dukaamo iska gataan ama shaqooyinkooda maalmaha aaday habeenkii meeshan almeenta ku sameynay waa arrin muhiim ah marka waxaan ku boori lahaa labada xara sida ifo iyo maxagadheera in ay garoon noocan ay hergeliyaan dhalinyaradooda maadaama tanba ay hergeliyeen dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari qaasatan Garissa County waxaan u sheegi lahaa dhalinyarada in ay isku tashtaan ay garoon noocan amal ah ay hergeliyaan si loo ciyaaro ilmi dhalinyaradii ay u daayaan meelaha amni xumada iyo dagaalka iyo meelaha ay fariisan laayeen darbiyaha ay fariisan laayeen habeenkii maadaama darbiyaha iyo meelaha ay fariisan laayeen waxa ugu qiimo fiican inay halkan ay fariistaan ay daawadaan ciyaarta ama ay ciyaaraan ay almeenda ciyaaraan maadaama ay wax kale ay ku rafaadi laayeen marka waan soo dhaweynaa garoonkan ninkay keenay iyo dhalinyaradii fikradda keentay waa dhalinyaro muhiim ah oo aan leenahay waa mahadsantiin marka garoonka ku soo dhawaada ciyaari kartiin xilli kasta habeenkii hal saac ka bilaabato ilaa 6 saac waa loo ciyaari karaa maalintii gameka waa balansan kartaa waa imaan kartaa subaxii waa imaan kartaa gameka waa balansan kartaa marka galbihii waa ciyaari kartaa game baa imaan kartaa waa balansan kartaa garoonka wuxuu leeyahay nin manager ah oo numberkiisa ayaa meesha yaala oo la soo wici karaa ifo hadda ka imaado balansan kartaa Dhagaxley localka walaalaheena oo Dhadhaab ah oo Kenyaanka ah oo wadankooda deganay oo nagu soo dhaweeyay maadaama aan ka imaanay anaga wadankeena Soomaaliya ka imaanay nagu soo dhaweeyay wadankan oo Kenya qaasatan Garissa County Dhadhaab sub county nagu soo dhaweeyay ay naftooda waan soo dhaweynaynaa waxay yihiin dhalinyaro anaga oo kala ah oo aan rabnaa inaan dhaxgalno oo garoonka ku ciyaarno maadaama hadda liigi Dhagaxley ka bilowday oo senior league ah lagu soo daray laba Kenyaan ah la dhahayo buulo laba Sigaale ayo buultu oo lagu soo daray oo garoonka kamid yihiin 16 team oo senior Dhagaxley jirtay hadda waa 18 team oo senior isdhaxgalka waa muhiim oo isdhaxgal baa la sameeynaya maadaama ay guddigii ay fariisteen ay wada hadleen oo lagu soo dhaweeyay garoonka ciyaartana ay qayb galeen ciyaarahana way socdaan saa camal ka soo qayb galaan reer Dhadhaab garoonka balansaan ha imaadaan ku ciyaaran bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ali Garaad waxaan joogaa xirada Dhagaxley waxaan noo bilaabmay Banooni oo la dhaho Samsider 77 maalintii saa u mashquulsanahay habeenkii niska hore ayaan xogaago iska orodnaa dhididka iska keennaa fursad weyn bay dhalinyartii reer Dhagaxley heleen marka way fiican tahay in dhalinyarta fursadahan ay marmar ku caajis baxsadaan waayo jirkooda ay dhisayaan caafimaadna way tahay inay bodiga uu exercise u sameeyo marka maadaama dadkii iskuulaad iyo shaqo kale iskaga mashquulsan yahay dhalinyarta habeenkii niska hore in la iska orado aad bay u wanaagsan tahay fursad baan looga sameeyay Dhagaxley laba team oo dhalinyartii hore ayaa wada ciyaarayso waxaa garoonka ku jiro hadda maadaama hadda aan ka soo baxay saaxiibkan Jiro oo nin caane oo guruunaha ku dheereeyo labadii koox baan hadda wada ciyaareynay maasha Allah aad baa u faraxsanahay ma maqal hadda xirooyinka kale in laga ciyaaro laakiin Dhagaxley uma hadda fursadaas heshay dhalinyarta keentay fursadan Dhagaxley keentay aad baa ayagana uga mahad celinayna oo dhalinyaro walaalaheena oo Dhagaxley marka exercise kaasaan sameynaa we are really appreciating ayagana
magacaydu alla maxamed cabdi isaaq waxaan ku magac dheerahay jiro meeshan waa garoonka ugu horeeya oo dhagaxley laga sameeyay 3 cara ilaa 30 sano kadib ayaa laga sameeyay dhagaxley marka habeenkii waa lagu ciyaaraa ilaa 6 saac maalintii waa la ciyaaraa waxaan ku faraxsanahay marka maashaadkan iskaga baashaalayna meesha xarooyinka la eelahayn marka carabna dhadhaabi xaga dheer iyo ifo inay nagu daydaan faraxsanahay team ayaan ka badinay ilaa 6-2 marka dareenkeeda caadi u kacsan yahay daawadayaal waxaad si toos ah naga dhaheynaysan channelada kale ah Kaafi Media Production channelka Faaliyaha Dhadhaab officially iyo sidoo kale channelka Saciido Kaajal waxaa si toos ah barnaamijka caawin idin soo tabanaya anigoo ah walaalkiina Xasan Kaafi iyo sidoo kale Faaliyaha Dhadhaab waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa Deeq waa managerka garoonka New Era Stadium ee laga furay xirada qaxootiga dhagaxley waa garoonkii ugu horeeyay casri ah ee laga furay xirada qaxootiga adduunka ku taasho marka waanu ku faraxsanahay hawsha aanu qabanay dhalinyarada qaxootiga khaasatan dhalinyarada Dhadhaab sub county joogto ee khaasatan xirada qaxootiga dhagaxley wallahi garoonka faa'iido badan buu leeyahay midda koowaad dhalinyarada iyo muqaadaraadka iyo waxyaalaha xun inay sameeyaan buu ka reebayaa midda labaad waa meel lagu jimcadsanayo oo exercise bay ku sameeyaan dhalinyartu habeenii maalinba waa lagu ciyaaraa waa garoon casri ah garoomada adduunka mid ka mid ah marka okaas waxaan ku boorinayaa dhalinyarada dhammaan meel walba ay joogaan saddexda xero qaxootiga inay fursadaan daabiga ka faa'iideystaan loo suurtageliyay ayna u suurtageliyeen dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada waddanka joogaan marka waan soo dhaweynaynaa walina waxaan ku rajaweynahay in meelo badan aan ka furno garoomo noocan ah alxamdulilah garoonka qaab ciyaareedkiisa waxaa weeye garoonka waxaa la seven side waxaa weeye 7 qof iyo 7 qof oo labada dhinac baa ku ciyaarayaan waa tiro ahaan 14 qof seven side ka marka macnihiisa guud waa sidaas